anigoo ku hadlaaya magaca madaxweynaha iyo dawladda iyo keygaba marka hore waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhalinyarada Soomaaliyeed oo horteyda taagan iyo madaxdooda oo tababar ku soo idlaaday ayna ka muuqato inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan dawladda Turkiga uga mahad celinaynaa sida hagar la'aanta ah ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan dawladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhameystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira oo ah ku dhawaad 1,030 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhameystirmaan muddo 2 sano gudahooda waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska Afrika maanta halkan waxaa ka muuqata horumar ummadda Soomaaliyeed hortooda waxaa taagan rajo cadowga Soomaaliyeed oo argagixisada ahna hortooda waxa ka muuqda maanta hoog maanta waxaa muuqda iftiin u muuqda ummadda Soomaaliyeed ku ummadda Soomaaliyeed gumaadi jirayna waxa hortooda ka muuqda mugdi waxay halkan aad ku soo bandhigteen iyo sida aad ugu muuqataan qayb ka mid ah taariikhdii aan soo dhaafnay qof walba rajo xumo qabtay waxaan leeyahay maantay qalbigaadu ha balaarto haddii qof Soomaaliya uu shaki ugu jiray in dawladda Soomaaliyeed ay ciidan la'aan tahay ama aanay socon dhismihii ciidanka waxa halkan hortiina ka muuqda qayb ka mid ah qorshaha fog ee dalka lagu xoreynayo waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inuu shaqada aad u soo diyaar garoodeen idinku garab galo waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inaad noqotaan kuwii soo celiyay sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa kaliya oo qabyaalada ka madax bannaan kuwa kaliya musuqmaasuqa ka madax bannaan kuwa kaliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaato jirto anigoo markaa ku hadlaaya dhammaan magaca madaxweynihiina oo aniga soo wakiishay iyo taliyayaashiina iyo wasiiradiina waxaan idin leeyahay hambalyo 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 ugu dambeyntii waxaan mar kale u mahad celinayaa tababarayaasha dugsiga iyo dawladda Turkiga oo matala safiirku waxaan raalli ka nahay shaqada aad dalka ka haysaan waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan dhameystiri doono 5,000 oo maantay aan u jeedno bilowgii ugu horeeyay hambalyo hambalyo hambalyo